hoggaanka sare ee ururka dhalinyarada Soomaaliya oo hogaaminaya gudoomiyaha daladaasi mudane Siyaad Umar Cali ayaa shiray maanta ku qabteen xarunta dalada dhalinyarada waxa ay jawaab ka bixiyeen eedeymo maalmihii u dambeeyay shakhsiyaad kooban ay dusha ka saarayeen in ururka dhalinyaradu uu ka mas'uul ahaa masiibadii ka dhacday badda Masar. gudoomiyaha oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda loo igmaday maamulka iyo mas'uuliyadda ummadda iyo shacbiga isla markaasina aan iyagu wax eedeyna ku lahayn shaqo la'aanta dhalinyarada haysata iyo aafada tahriibta ee tira beeshay. sida wagaasimu sheegay waxa nasiib darro ah oo Soomaaliya nasiib darro aragta iyo wax laga xishoodo in la siyaasadeeyo aafada tahriibta oo aafo inaga xoog weyn in la marmariyo institution aan dawli ahayn aan dawladda aan ka helin miisaaniyad mashaariic kooban hay'adaha UN-ka kontrashaad ka hela inaad dareemaysaan muddo 10 cisho ka badan inay koox shir wadayaali ay mikrofoonka u qaateen inay institution-kaas volunteer-ga ugu shaqeynayno aan habeenay maalin booqdo taaganahay inay Soomaaliya marmariyaan ay Soomaaliya maxay aafada tahriibka uga qaboyday ay masaa'ibta dhacday taasoo uga qaboyday Soomaaliya qaranka dawladda ka soo yana dawladda isku sheegay mas'uuliyadda halkeeda hal adigo mas'uuliyadda aan lahayn anaga ayaan la galgalan volunteer baan wada waadignaa mas'uuliyadda cidda iska leh ee haddii dhacdo haddii wax wanaagsan qabtay hadda xumaadaanba cid baa ka taboola mas'uuliyadda. dhanka kale agaasimaha fulinta ee dalada dhalinyarada Soomaaliya Saciid Maxamed Axmed ayaa ka hadlay waxqabadka ay daladu ku talaabsatay intii ay hoggaanka toddobaad ee daladu hadda xilka hayeen isagoo dhanka kalena ugu baaqay dhalinyaradu in ay dulqaad muujiyaan. taas waa mashaariicda soo jeedinay sidoo kale dalada Soomaaliya waxay haatan wadaan mashaariic badan oo kala duwan waxa kamid ah mashruuca degmada Burco ka socda oo in ka badan 850 dhalinyaro ay ka faa'iideysteen waqtiga imkaan la hadlaynaa wejigiisii shanaadan ku jiro oo 200 oo dhalinyaro ay ku jiraan saddexda xarumood ee dhalinyaro kala duwan ee SYS Soydafo iyo Soyfo 200 ee dhalinyaro waxaan gacanta lagu hayn doonaa muddo 9 bilood iyadoo loo gudbin doono markaa waxbarashada rasmiga ah inay ku biiraan 850 ka dhalinyaro ee Burco ka soo aflahay waa dhalinyaradii u baahnayd taakulada iyo taageerada u baahnayd waa dhalinyaradii dayacnayd waa dhalinyaradii degjiifku ay ku jireen waxaan ku guulaysanay inaan nolol samayno rajoog samayno in ka badan 20 ganacsi oo yaryar oo maanta dhalinyaro fara badan ay Burco ku haystaan ayaan iyagana furnay. gabagabadii shirkaasi ayaa waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah hoggaanka sare ee ururkaasi waxaana ay sheegeen in ay ka dalada ahaan sanduuqii madaxweynaha Soomaaliland uu ugu dhawaaqay aanay ilaa hadda wax lacag ku dhicin sababteedana ay leeyihiin wasiirro kamid ah xukuumadda Soomaaliland. daladan qof gaara ama shakhsi gaara ma calaamadsan oo iska leh oo mulkiyadu leh laakiin waxa iska leh jiilba jiilka ka dambeeya iska leh Soomaaliya waxa mudan in ay ku faanaan daayirta laakiin haddii ay u arkaan cadow waxba qaldamaya jiritaankii Soomaaliya uu qaldamaya ujeedadii Soomaaliya meesha way ka baxaysaa dhawaanta waxa soo noqonaysa dhalinyaro ka cabanaysa Soomaaliya annagu ma dhiirigelino taariikh mana dhiirigelino in ay dhalinyaradu xaqooda waayaan labada qodob midna ma dhiirigelino anigu shakhsi ahaan Faysal ahaan waxa ku talin lahaa dadkii ku dhintay taariikhda horta waa qoraal Ilaahay oo halkiisa cidna tay kama baajin karto waxa ku talin lahaa in la soo celiyo intii badbaaday oo halkan lagu soo celiyo oo qaran hadaynu nahay iyo hadaynu Soomaaliya nahay iyo hadaynu shacab nahayba aynu iska kaashano sidii loo soo celin lahaa waayo waxa imanaysaa in berri toole qof walba oo yiraahdo ka badbaaday noqaadigo waxa kale Soomaaliya sameysay lacagta yar ay proposal-ka u qorato ay u soo jeediso hay'adaha caalamiga in dhalinyarada lagu kaawo xirfad gaar ahaan dhalinyarada nugul sida caruurta ay u naqaano street childrenska ama kuwa darbi jiifka in la soo kaxiyo Burco 800 oo caruura oo noloshu waxaan rajo ku lahayn iyo mustaqbal oo street childrenna oo caruurta yaryar darbi jiifka ayaa inta la soo kaxeeyay saddexda xarumood oo gaasimu sheegay lagu tarbiyadeeyay aqoon lagu baray xirfad lagu baray nolosha la tusay wanaageed iyo waxay tahay maanta iskuul qaarkood digtaan qaarkood ka shaqeeyaan xarunta shalay tolo darbi jiifka oo ka soo galay maanta uu shaqaale ka yahay oo xubin firfircoon ka yahay waxaana ka jirta arrintaas Burco marka waxaan leenahay war dhalinyarada mushkiladda haystay shaqaaleedu ma aha mid ay Soomaaliya ka saari karto salahaan kala madaxweynuhu wuxuu sheegay in sanduuqa dhalinyarada ee Soomaaliland dakhliga soo galaya oo 3% uu ka imanayo maxay hay'ad miisaaniyadda guud ee qaranka taas haddaynu soo sameeyno oo sanduuqaas ku dan dhalinyarada waxa lagu sameyn karayaa in xirfad ay ku shaqeysan karaan la sameeyo in shaqo abuur loo sameeyo in dhalinyarada itijaah kan maanta ka wanaagsan loo sameeyo laakiin taa waxaan ugu fadhinaa deebaaqi madaxweynaha in xukuumaddu
dhaqan gelisaa fiican oo tiraado madaxweynaha waxaan ku baaqay wasiirada koo shaqeeya ay dhahdaan wixii madaxweynuhu ku baaqay waa in hirgelin laakiin marka la wasiirkii maaliyadda diiday in budgetkii wax laga sameeyo ee la wasiir hebel baa diiday dad miis waxay noqonaysaa in wasiirkii iyo madaxweynuhu aanay isku qoon noqonin Yacquub Saciid Kuriya Somali News TV Hargeysa